Assalaamu calaykum. Fahamka hurdada. Ciwaankan waxaan kugu kala dhigi doonaa hurdada iyo waxyaabaha ku tacalluqa. Anigoo kugu soo koobi doona hadduu alla idmo 10 qodob. Haddii aad doonaysid ka bogasho wacan. Hurdadu waa qayb muhiim ah oo ka mid ah hawl maalmeedkaada. Waxaad ku bixisaa 3 meelood meel waqtigaaga in aad hurdo. Hurdo tayo leh ama helitaanka hurdo kugu filan waxay lagama maarmaan u tahay badbaadadaada sida cuntada iyo biyaha. Hurdo la'aan ma samayn karaysid ama ma awoodi karaysid waddooyinka maskaxdaada ee kuu oggolaanaya inaad wax barato oo aad abuurto xasuuso cusub. Wayna adag tahay in aad xoogga saarto oo aad si degdeg ah ugu falceliso ama aad uga jawaabto wixii lagu weydiiyo. Qodobka koowaad, maxay hurdadu muhiim u tahay? Hurdadu waxay muhiim u tahay dhowr shaqo oo maskaxeed oo ay ku jiraan sida unugyada dareemayaasha ay isula xiriiraan oo loo yaqaano neurons-ka. Dhab ahaantii, maskaxdaada iyo jirkaaga ayaa si cajiib u shaqaynaya markaad hurdo. Natiijooyinkii ugu dambeeyey waxay muujinayaan hurdadu in ay door ka ciyaarto ilaalinta jirkaaga, taasoo meesha ka saaraysa sunta maskaxda ku jirta ee ku ururto markaad soo jeedo. Qof kasta wuxuu u baahan yahay hurdo, laakiin ujeeddadeeda ayaa ah weli qarsoodi. Hurdadu waxay saamaysaa ku dhowaad nooc kasta oo unug iyo habdhiska jirka ah, laga bilaabo maskaxda, wadnaha, iyo sambabada ilaa dheefshiidka, shaqada difaaca, iyo iska caabinta cudurrada. Cilmi-baaristu waxay muujinaysaa hurdo la'aanta joogtada ah ama hurdada tayadeeda liidato in ay kordhiso khatarta xanuunada ay ka mid yihiin dhiig-karka, xanuunada cudurrada wadnaha iyo xididdada dhiigga, sonkorowga, niyad-jabka, iyo buurnaanta ama cayilka. Qodobka labaad, habdhiska hurdada. Dhismooyin dhowr ah oo maskaxda ku jira ayaa hurdada la xiriira. Hypothalamus wuxuu ku yaalaa gudaha maskaxda. Qaab dhismeed cabirkiisuna la eg yahay looska ayaa ka kooban kooxo unugyo neerfayaasha ah oo u shaqaynaya sidii ay u xakameyn lahaayeen hurdada iyo kacsiga. Gudaha hypothalamus waxaa ku jira suprachiasmatic nucleus oo loo soo gaabiyey SCN. Waa kooxo kumanaan unug ah kuwaas oo si toos ah ugu helaya macluumaadka ku saabsan iftiinka ee indhaha oo xakameynaya habdhaqankaaga. Dadka qaar ee waxyeellada ka soo gaartay SCN-ka si khaldan ayay u seexdaan maalintii oo dhan sababtoo ah ma awoodaan in ay la jaanqaadaan wareegga iftiinka iyo madowga. Dadka indhoolaha badankoodu waxay haystaan xoogaa awood ah in ay dareemaan iftiinka, waxayna awoodaan in ay wax ka beddelaan wareeggooda hurdada ama soo jeedka. Brainstem waxay ku taallaa salka maskaxda, waxayna la xiriirtaa hypothalamus si loo xakameeyo isbeddellada u dhexeeya hurdada iyo kicista. Brainstem waxaa ku jiro qaab dhismeedyada loo yaqaano pons, medulla, iyo midbrain. Brainstem, gaar ahaan ponska iyo medullaha, ayaa sidoo kale door gaar ah ka ciyaaro hurdada REM. Hurdada REM waxaan ku arki doonaa marxaladda saddexaad. REM waxaa loo soo gaabiyey Rapid Eye Movement oo micnaheedu noqonayso dhaqdhaqaaqa isha oo degdeg ah. Waxayna soo dirtaa calaamado lagu nasinayo murqaha lagama maarmaanka u ah dhaqdhaqaaqa addimeyna si aynan u dhaqangelin riyooyinkeena. Thalamus wuxuu u shaqeeyaa sidii oo u gudbin lahaa macluumaadka laga soo bilaabo dareenka ilaa cerebral cortex-ka. Macluumaadka ayaa laga soo wareejiyaa xasuusta gaaban si loogu kaydiyo xasuusta dheer. Inta lagu jiro marxaladaha hurdada, inta badan thalamus wuxuu noqdaa mid aamusan, taas oo kuu oggolaanaysa in aad dib u habayso adduunkaaga dibadda. Laakiin inta lagu jiro hurdada REM, thalamus wuxuu noqdaa mid firfircoon, una soo diraa sawirrada cortex-ka, dhawaaqyada, iyo dareenka kale ee buux dhaafiyey riyooyinkeena. Qanjirka pineal oo ku dhex yaallo labada hemisfeer ee maskaxda wuxuu ka helaa calaamadaha SCN-ka, wuxuuna kordhiyaa wax soo saarka hormoonka loo yaqaano melatonin, kaas oo kaa caawinayo hurdo seexashada marka nalalka hoos u dhacaan. Dadka indho beelay oo aan isku dabaridi karin wareeggooda hurdada ee dabiiciga ah iyagoo isticmaalaya iftiinka dabiiciga ah waxay dejin karaan qaabka hurdada iyagoo qaadanaya qadar yar oo melatonin ah waqti isku mid ah maalin kasta. Basal forebrain oo u dhow xagga hore iyo hoose ee maskaxda waxay sidoo kale kor u qaadaa hurdadaada iyo soo jeedkaada, halka qayb ka mid ah midbrain ay u shaqayso hab kacsi ah. Sii daynta adenosine ee unugyada ku jiro basal forebrain waxay taageertaa hurdadaada. Kafeygana waxay ka hortagtaa hurdadaada iyadoo xannibaysa ficilada adenosine-ka. Amygdala waa sida qaab dhismeedka looska oo ku lug leh habaynta shucuurta, waxayna noqotaa mid firfircoon inta lagu jiro hurdada REM. Qodobka saddexaad, marxaladaha hurdada. Waxaa jiro 2 nooc oo asaasi ah oo hurdo ah. Nooca koowaad, hurdo aan REM ahayn, taas oo leh 3 marxaladood.
nooca labaad hurdo reem ah. hurdada reemka waxaa loo yaqaanaa dhaqdhaqaaqa isha oo degdeg ah, waxay leedahay hal marxalad. mid kastaa waxay ku xiran tahay hirarka maskaxda ee gaarka ah iyo dhaqdhaqaaqa neerfaha, waxaynu ku wareegnaa dhammaan marxaladaha aan reem ahayn iyo midda reemka ah dhowr jeer inta lagu jiro habeenka caadiga hurdada, iyadoo ay sii dheeraanayso hurdada reemka si qoto dheer ah oo dhacaysa ilaa subaxii. nooca koowaad hurdo aan reem ahayn, taas oo leh 3 marxaladood. marxaladda koowaad hurdo aan reem ahayn waa isbeddelka soo jeedka oo u beddesha hurdada inta lagu jiro muddadan gaaban oo qaadanaysa dhowr daqiiqo. hurdo fudud, garaaca wadnaha, neefsashada iyo dhaqdhaqaaqa indhaha oo gaabis ah iyo murqahaagu oo nasto mararka qaarkood. mawjadaha maskaxda waxay bilaabaan in ay ka gaabiyaan qaabka soo jeedkooda maalintii. marxaladda labaad hurdo aan reem ahayn waa hurdo fudud oo ka hor inta aadan gelin hurdo qoto dheer. garaaca wadnaha iyo neefsashadaada oo gaabis ah, muruqyaduna way sii dabcayaan, heerkulka jirkaaga ayaa hoos u dhacayo, dhaqdhaqaaqa indhahaagu way joogsanayaan. dhaqdhaqaaqa mawjadaha maskaxda ayaa gaabis ah, laakiin waxaa lagu asteeyaa dhaqdhaqaaq kooban oo koronto ah. waxaad ku bixisaa in ka badan inta aad ku qaadato wareegyada hurdada ee soo noqnoqda marxaladda labaad marka loo eegayo marxaladaha kale ee hurdada. marxaladda saddexaad hurdada aan reem ahayn waa xilliga hurdada qotada dheer aad gasho oo nafs ku dareento naftaada. waxay dhacdaa wakhti dheer inta lagu jiro qaybta hore ee habeenkii. garaaca wadnahaada iyo neefsashadaadu waxay gaabis yihiin heerkoodii ugu hooseeyey inta lagu jiro hurdada. muruqyadaadu way dabacsan yihiin, waxaa laga yaabaa in ay adag tahay in lagu toosiyo. mawjadaha maskaxdu way sii gaabiyaan. nooca labaad dhaqdhaqaaqa isha oo degdeg ah oo loo yaqaano hurdada reem. hurdadu reem waxay leedahay hal marxalad. waxay marka hore dhacdaa 90 daqiiq kadib markii aad seexato. indhahaagu waxay u socdaan dhinac ilaa ka dhinac daboolka indhaha oo xiran. dhaqdhaqaaqa mawjadaha maskaxdaadu waxay noqdaan mid u dhow tan lagu arko soo jeedka oo kale. neefsashadaaduna waxay noqotaa mid degdeg ah oo aan joogto ahayn. garaaca wadnahaada iyo cadaadiska dhiiggaaduna waxay noqdaan kuwo ka agdhow heerka soo jeedka oo kale. inta badan riyadaadu waxay dhacdaa inta lagu jiro hurdada reem, inkastoo qaarkood ay sidoo kale ku dhici karaan hurdada aan reem ahayn. muruqyada gacanta iyo lugaha ayaa si kumeel gaar ah loo curyaamiyaa, taasoo kaa ilaalinaysa in aad fuliso riyooyinkaada. markaad gabowdo waxaad hurdo yar seexataa waqtigaaga hurdada reem. xoojinta xasuustaadu waxay u baahan tahay hurdo aan reem ahayn iyo mid reem ah labaduba. qodobka afraad hababka hurdada. waxaa jiro 2 hab oo biological ah oo loo yaqaano circadian rhythm iyo homeostasis ayaa wada shaqeeyay si ay u habeeyaan markaad soo jeedo iyo marka aad seexanayso. habka koowaad circadian rhythm wuxuu toosiyaa howlaha kala duwan ee ka yimaada isbedelada maalinlaha ah ee soo jeedka ilaa heerkulka jirka, dheefshiidka iyo soo daynta hormoonada. waxay xakameeyaan waqtigaaga hurdada, waxayna ku horseedaan hurdo habeenkii iyo dareenka in aad subaxii soo toosto digniin la'aan. saacadaha biologicalka ee jirkaaga, taasoo ku salaysan qiyaastii 24 saac maalin, ayaa maamusha inta badan circadian rhythm. circadian rhythm waxay la midoobaan tilmaamo ku saabsan waqtiga dhabta ah ee maalinta sida iftiinka iyo heerkulka, laakiin way sii socdaan xitaa haddii aanay jirin tilmaamo. habka labaad hemostasis. hemostasiska hurdada ayaa ilaalinaysa baahidaada hurdo. hemostasiska waxay xasuusisaa jirkaaga in uu seexdo waqti go'an, kadib waxay nidaamisaa xoojinta hurdadaada. hurdadu waxay sii xoogaysataa saacad kasta oo aad soo jeedo, waxayna kugu keentaa hurdo dheer oo qoto dheer kadib muddo hurdo la'aan ah. qodobka 5aad maxay yihiin waxyaabaha saameeya baahidaada hurdo. waxyaabaha saameeya baahidaada hurdo waxaa ka mid ah xaalado caafimaad, daawooyin, walbahaar iyo jawiga hurdada, iyo waxaad cuntid ama cabtid. waxaa laga yaabaa saamaynta ugu weyni in ay tahay iftiinka. unugyada khaaska ah ee ku jiro xoogga indhaha waxay farsameeyaan iftiinka, waxayna u sheegaan maskaxdaada in ay maalin ama habeen tahay. waxayna horumarin karaan ama dib u dhigi karaan wareegga hurdadaada. iftiinka soo gaaraya indhahaaga waxay adkayn karaan in aad seexato ama aad hurdada ku noqoto markii aad soo toosto. qodobka 6aad dadka habeenkii shaqeeyo iyo hurdada. shaqaalaha habeenkii shaqeeya inta badan waxay dhib kala kulmaan hurdo la'aan marka ay seexdaan. sidoo kale waxay dhib kala kulmaan in ay ku soo jeedaan goobta shaqada, sababtoo ah circadian rhythmka dabiiciga ah ee wareegga soo jeedka iyo wareegga hurdada ayaa qalqaliyey. marka laga hadlayo diyaaradaha,
circadian rhythm wuxuu noqdaa mid aan la jaanqaadi karin waqtiga maalinta ee dadka u duulayaan aag kale oo waqtiyeedka ka duwan, taas oo abuuraysa ismaandhaaf u dhexeeya saacadahooda gudaha iyo saacadda dhabta ah. Qodobka 7 intee in le'eg ayaad u baahan tahay hurdo? Baahidaada hurdada iyo qaabkaaga hurdadu way isbedelaan markaa da'da tahay, laakiin tani aad bay ugu kala duwan yihiin shakhsiyaadka isku da'da ah. Ma jiro sixir ama tirada saacadaha hurdada oo go'an ama xadaysan. Dhallaanku waxay seexdaan marka hore ugu badnaan 16 ilaa 18 saacadood maalintii, taasoo kor u qaadaysa korriinka iyo horumarinta gaar ahaan maskaxdooda. Carruurta da'da dugsiga gaartay iyo dhalinyarada celcelis ahaan waxay u baahan yihiin qiyaastii 9 ilaa 10 saacadood oo hurdo ah habeenkii. Inta badan dadka qaangaarka ah waxay u baahan yihiin 7 ilaa 9 saacadood oo hurdo ah habeenkii, laakiin kadib da'da 60 hurdada habeenkii waxay u egtahay mid gaaban, fudud oo kala gooyay baraarujin badan. Dadka da'da ah ayaa sidoo kale u dhow in ay qaataan daawooyin carqaladeeya hurdada. Guud ahaan dadku hurdo yaraan ayay helayaan intay ay u baahnaayeen in ka yar, iyadoo ay u wacan tahay saacadaha shaqada oo dheeraaday iyo helitaanka maaweelada habeen iyo maalin iyo howlo kale. Dad badan ayaa dareemaya in ay kasban karaan ama gudi karaan hurdo seegtay inta lagu jiro isbuuca, laakiin hurdo dheer oo maalmaha fasaxa aad seexatay waxaa laga yaabaa in aysan kugu filnayn. Qodobka 8 riyadu. Maxaan u riyoonaa marka aan hurdayno? Qof kasta wuu riyoodaa. Waxaa ku qaadataa qiyaastii 2 saacadood habeen kasta riyada, laakiin waxaa laga yaabaa in aadan xasuusan inta badan riyadaada. Ujeeddada saxda ah lama garanayo, laakiin riyadu waxay kaa caawin kartaa in aad habayso shucuurtaada. Dhacdooyinka maalinta ayaa inta badan kusoo duulaya fikradahaada xilliga hurdada, iyo dadka qaba walaaca iyo walwalka waxay u badan tahay in ay ku riyoodaan riyooyin cabsi leh. Riyooyinku waxay la kulmi karaan dhammaan marxaladaha hurdada, laakiin badanaa waxay aad ugu cad yihiin hurdada REM-ka ah. Dadka qaarkiis waxay ku riyoodaan midabka riyo midabeysan, qaar kalena waxay xasuustaan riyooyin madow iyo caddaan ah black and white. Qodobka 9 doorka neurotransmitterska calaamadaha kiimikeed ee hurdada. Kooxaha neuronska ee hurdada qaybo badan oo maskaxda ka mid ah ayaa noqda kuwo firfircoon marka aan isu diyaarino sariirta. Kiimikooyinka calaamadeeya neerfaha ee loo yaqaan neurotransmitterska waxay demi karaan ama waxay dejin karaan dhaqdhaqaaqa unugyada, kuwaas oo tilmaamaya kacsi ama nasasho. GABA waxaa lala xidhiidhiyaa hurdada, nasashada murqaha iyo suuxinta. Norepinephrine iyo orexin waxay ka dhigaan qaybo maskaxda ka mid ah mid firfircoon inta aan soo jeedno. Neurotransmitters kale ee qaabeeya hurdada iyo soo jeedka waxaa ka mid ah acetylcholine, histamine, adrenaline, cortisol, and serotonin. Ugu dambeyn, qodobka ugu muhiimsan qodobadeena wuxuu noqon doonaa qodobka 10aad, kaasoo ah talooyin lagu helo hurdo wacan. Halkan waxaa ah dhowr tabo oo lagu hagaajinayo hurdadaada. 1 jadwal dejiso. Seexo oo toos isku waqti maalin kasta. 2 jimicso 20 ilaa 30 daqiiqo maalintii. 3 ka fogaaw kafeega iyo nikotiinka goor dambe oo maalintii ah. Ka fogaaw micnaheeda maaha iska daa kafeega, keliya waxa waaye galabtii markii la gaaro kafeega ha isticmaalin si uusan kaaga carqaladeyn hurdada, laakiin ka fogaaw oo iska daa, caafimaad darro ayuu kuu keenayaa nikotiinka. Nikotiinkana wuxuu ku jiraa waa kiimikaaliska ku jiro sigaarka. 4 isdeji ka hor inta aadan seexan. Isku day qubays diiran, wax akhrin ama nidaam kale oo nasasho ah. 5 u samee qol aad seexato. Iska ilaali nalalka dhalaalaya, dhawaqyada dheereeyo, hana ku daawan TV ama kombiyuutar qolkaaga jiifka ah. 6 sariirta ha ku jiifsanin adigoo soo jeeda. Haddii aadan seexan karin, samee wax kale sida akhrinta ama hawl kale ilaa aad dareento daal oo aad u baahato hurdo. Halkaas ayuu inoo egyahay. Waxaa inoo badanaa ciwaanka xigo hadduu Alle idmo. khayr badan.